Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay Cabdiyare iyo Dabaco. Waxaan idinkaga sheekay doonaa wixii ku dhacay Cabdiyare. Cabdiyare waa wiil yar oo la nool awowgiisa, laakiin waa wiil madax adag aanan war ka yeelinin awowgiisa. Cabdiyare subaxyada ka mid ah waxaa dhacday in uu soo baxo oo banaanka uu soo aado. Cabdiyare wuxuu lahaay labo saaxiib, Bolonbolo iyo Shimbir ee saaxiib isla ahaayeen. Meesha ay ku noolaayeen waa meel baadiye ah. Cabdiyare markuu banaanka uu soo aaday wuxuu la kulmay saaxiibadiisa. Wuxuu arkay saaxiibadiisa oo la cuni rabo oo waxaa cuni rabay nyaanyuur, wuuna u sheegay. Markaas kadib sidii ayuu saaxiibadiisii uu ku badbaadiyey. Markuu saaxiibadiisa oo badbaadiyey kadib waxaa arkay awowgiisa banaanka ku arkay Cabdiyare. Awowgiisa markuu banaanka ku arkay Cabdiyare waxaa la dhahay, maxaa u soo baxday? Wuxuu dhahay isana, waxaa la dheelayay asxaabteeda. Cabdiyare awowgiisa ayaa waday oo wuxuu ku celiyey guriga oo wuxuu dhahay, banaanka Dabaco iyo bahala dad cunaa joogaane ha isku soo bixin oo guriga joog oo guriga ku dhex dheedheel. Awowgiisa markaas irada ayuu xiray kadibna gudaha ayuu iska galay. Cabdiyare markaas banaanka xoogaa ku dhedheelay. Sidoo u dhedheelayay kadib wuxuu dareemay caajis. Kadibna hadalkii awowgiisa ayuu iska ilooway oo awowgiisa wuxuu kula dardaarmay inuu banaanka uusan aasanin. Laakiin Cabdiyare isla markii uu soo baxay oo wuxuu soo aastay banaankii oo wuxuu u soo laabtay asxaabtiisii. Asxaabtiisii markuu u soo laabtay ayagoo wada sheekeysanaya oo baashaalayaan ayaa waxaa u imaaday Dabaco aad u weyn. Markaas kadib Dabacadii markay imaaday Cabdiyare iyo asxaabtiisa Dabacadii ayaa arkeen kadibna way kala ordeen. Cabdiyare xoogaa wuu nasiib badnaayay oo Dabacadii koodii hore Cabdiyare maysan aasanin waxay aasatay Bolonboladii. Bolonboladii ayay bursatay. Bolonboladiina waxay isku dayday inay ka baxsato Dabacada, laakiin waxaa dhacday in ay baxso weysay nasiib daro awgeed waa la cunay. Markaas kadib Dabacadii waxay soo aasatay Shimbirtii ayay burbursatay. Intay Shimbirtii ay burbursanaysan Cabdiyare wuxuu sameeyey wuu ka dhuuntay oo geed ayuu kaga dhuuntay. Kadibna meeshuu isku sii aamin waayay wuxuu sameeyey geedkii ayuu sii koray. Kadib geedkii markuu koray Cabdiyare wuxuu arkay Shimbirtii oo Dabacadii bursanayso. Shimbirtii waxay dhahday, Cabdiyare i badbaadi. Markaas ayuu wuxuu dhahay, adiga wareeri anaa gaadayay. Cabdiyare geedka ayuu saarnaayay kadib wuxuu sameeyey siriq ayuu samaystay. Kadib Dabacadii waxaa boojeysay Shimbirtii oo madaxii kaga warwareegsatay. Cabdiyarena aqligiisa ayuu isticmaalay wuxuu sameeyey xirig oo inuu duuduubtay oo dabada kaga sirqiyey kadibna geedka saas ugu soo raariciyay. Kadib markii saas ay tahay sheekada ayaa waxaa imaadeen kuwo ugaarsata ah oo raadinayo xayawaano ee duurka ay ka dabaan. Markaas kadib waxay arkeen Dabacadan oo meel ka soo raaracdo ayagoo dili rabo ayaa wuxuu dhahay, way xirxirantahay Dabacadani, tartiibkiina la qaata. Sidaas ayayna ku badbaadeen Shimbirtii iyo Cabdiyare. Laakiin Cabdiyare halahan dhib ma uusan mar laheenin hadduu hadalka awowgiisa oo maqli lahaay oo gurigiisa isaga dhedheeli lahaay ama gurigiisa iska joogi lahaay halahan dhib ma arki laheenin. Ama oo uu wacan lahaay saaxiibadiisa oo guri uu la dhedheela oo dhihi lahaay halahan dhib iyo rafaad ma uusan mari laheenin. Marka sheekadan waxaa ka qaadanaynaa in hadalka waalidka la dhageysto oo la maqlo. Waalidka hadalkiisa in la adeeco, laakiin waalidka hadalkiisa haddaa la khilaafo noloshaada khatar ay galee. Mana fiicna waalidka hadalkiisa in laga soo horjeesto. Intaan ku kulmi doono sheekadan sheekada xigto waxaan idin leeyahay nabad iyo farxad ku noolaada. Channelkana subscribe saara saa ula socotiin sheekooyinka cusub ee soo socda. Si aysan kuu dhaafin, subscribe saaro.